السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سومالي محمد آد باندين سلام هيا ميلاد شوكتان با وانيغو مدالة iyo hooyadeen oo halkan ila fadhida hooyo Soomaaliyeed ba maanta ila joogta marar badan baan idin soo gudbiyay anigoo faraxsan anigoo iska qoslaaya anigoo hadii Ilaahay ku sameeyay yahay bulshada iska dhex mushaaxayo iska baashaalaya war maanta maalintii way ka duwan tahay maanta waan murugsanahay Ilaahay murugada naga dulqaado waxaa ila fadhido hooyo Soomaaliyeed magacaago saddexan magacayga Raxma Khayrow Ibrahim baa la yiraahdaa Raxma Khayrow Ibrahim waa hooyo Soomaaliyeed waxa ka maqan wiilkeedii muddo 5 bilood ayuu ka maqnaa muddo 5 bilood ayay raadinaysay wiilkaas uu tahriibay wiilkii markuu tahriibay muddo 5 bilood ay hooyadeen la gabi dhacaysay xaaladiisa hadii Ilaahay ku sameeyay yahay mar maalin dhaweeytoon baa la soo sheegay inuu magafa haysto waxa ka maqan wiilkaas oo muddo 5 bilood hadda maqnaa baa la helay magafa haysta hooyadeen marka bal ayada xaaladeeda inooga warramay inta yacnaha ay inta laga rabo maanta lacagta laga rabo ee magafu ka haysto assalaamu calaykum inta muslimiinta oo walaalahayga oo daawanaysan aan la hadlayaa muslimkoo dhan waa walaalo diinta islaamka muslimiinta dhan walaalaysay aniga cunug baa iga baxsaday muddo 5 bilood baa hadda iga maqan yahay cunugaas waxaa liigu sheegtay lacag 1 milyan iyo 300,000 850 baan saa muslimka u dhax ordaayo muslimiinta walaalahay ii gargaareen aan bixiyay aniga qof masaakiin baan ahay suuqa Mandheeraan ka ganacsadaa waxaan gadgadaa yaanyan gadgadaa qudaar baan gadaay wax kale ma haysto cunugana ogoon waayay asaas iga baxsaday hadda waxaan u baahanahay in la ii kaalmeeyo lacagta yarta liiga rabo waa 500,000 waa $5,000 baa liiga rabaa intaas muslimiinta walaalahayga ah diinta aan ku walaalownay aan ku codsanayaa inay igu soo gargaaraan ayakana dembigooda Allah dhaafo oo muslimiinta Soomaaliyeed islaamka oo dhan waa muslim walaal ah walaalnimadan muslimiinta u soo horfariistay ayaan u baahanahay in la ii soo kaalmeeyo Soomaali Maxamed meel walba oo joogtaan de kulli ilmo Maxamed baan nahay mar haddaan ilmo Maxamed nahay Soomaali Maxamedey maanta baan idin baahanahay war maanta garab baan idin ka baahanahay war maanta xaaladu waxay taagan tahay tollaayay hadaad maqasho waa tan oo kale qofkii wax dhalay baa garan karay ana xanuunka uu leeyahay ilmaha dhasho ka dhaqaaqay oo magafa haysto qofkii wax dhalay baa garan karay xanuunka uu leeyahay Soomaalidu way iscaawisaan inta sidaan ku aqaano way iscaawisaan maanta caawinaad baan maanta idinka fadhinaa waa hooyo Soomaaliyeed murugta Allah ka dulqaaday ninkan waxba haysanin ducada ha ku kaalmeeyo ninkii Ilaahay wax siiyeyna waxa ka soo bixiyo maanta qaaraan baan aruurinaynaa ha ka soo bixiyo maanta hooyada Soomaaliyeed waxa uu ka bixin kare uu awoodo wax badan ma aha waa $5,000 $5,000 lacagta Kenya waxay ku tahay 500,000 hooyadaas kurbada haysta Allah ka dulqaado kurbadaas inaad ka dulqaadaan oo maanta murugta iyo xanuunka haysta aad ka dulqaadaan oo nala qaybsataan dhibaatada ayaanu doonaynaa maanta way ka duwan tahay maalmihii wallahi waa murug weey wallahi ninkii garanayo baa garanaya yacnaha xaaladda aan ku jiro hooyada Soomaaliyeed ha laga soo farxiyo wiilka magafuhu haysto ha laga soo daayo magacii wiilku Bilaal Cali Nuur Maxamed baa la yiraahdaa wiilka magaciisa waxaa la yiraahdaa Bilaal Cali Nuur Maxamed Bilaal waa nin reer Mandheera oo Mandheera ka tahriibay wiilka Allah ka soo daayo cadowga gacanta ku haysta hooyadeena Allah ka dulqaado kurbada haysata ilmaada reeyaal Soomaali Maxamedey Soomaalinimadu ha shaqeyso dhalashadu ha shaqeyso dhiigu ha shaqeeyo maanta hooyadeen ha laga farxiyo cadowga wiilka ha laga soo daayo wax badan ba ma aha $5,000 waxa laga yaabaa 5 qof oo bixin kartaba hal qof baa bixin karaba ninkii $10 heli kara ninkii $5 heli kara ninkii $100 heli kara ninkii $1 heli kara war maanta sadaqada maanta sadaqadu waajib idinku tahay ilmaada reeyaal Soomaali Maxamedey sadaqadaas ha laga qayb qaato maamada ha laga soo qaado kurbada haysa kurbada Ilaahay naga dulqaado waa hooyo masaakiina magaceeda magacaaga muxuu ahaa hooyo Raxma Khayrow Ibrahim Raxma Khayrow Ibrahim hadii aad xawaalad ku soo dirayso sadaqada hadaad xawaalad ku soo dirayso Raxma Khayrow Ibrahim baad ku soo qoraysaa lambarkeeda waxa weeye eber 7 27 81 14 16 mar labaad aan ku celiyo
mar labaad aan ku celiyo waa lambarkeedu waxa weeye eber 7 27 81 14 16 lambarka labaad wiilkeeda oon saaxiibanahay oo hawshan la soo socodsiyo khayr Allah siiyo Xuseen baa la yiraahdaa lambarkiisa waxa weeye 07 eber 7 69 38 85 eber 2 afka Ingiriiska hadaan ku sheego waa 0727 881 1416 waa lambarka maamada lambarka wiilka hadaan afka Ingiriiska ku sheego waa 07 69 38 8502 labada lambar baad ku soo diraysaa hadaad Kenya joogto M-Pesa ku soo diraysaa hadaad dibadaha joogto M-Pesa meelaha qaar waa laga isticmaalaa M-Pesa waad ugu soo diri kartaa hadaad xawaalad ku soo diri karto waa sidoo kale waan soo dhaweynaynaa hadaad Soomaaliya joogto xawaalada ku soo diri karto ayadana waan soo dhaweynaynaa ilmaada Reyaalo maanta laga qayb qaata qaaraanka hooyada murugta Allah ka dulqaado wiilkan cadowga Allah ka soo daayo Soomaalida waxaan leenahay war maanta garab idin ka baahanahay maanta hooyadan hal caawiyo waa hooyo Soomaaliyeed hadaan ilma Maxamed nahay hal caawiyo ilma Maxamed hadaan nahay Soomaaliya maanta waa maalintiini garab istaag baa idin ka baahan yahay maxaa kala hooyo Soomaalida u gudbin lahayd Soomaalida waxaan u gudbinayaa dimbangooda Allah dhaafo walaalahay waan baryayaa meeshan waxaan u fadhiyaa maanta in walaalahay isoo caawiyeen walaalahay ummadna Muhammad islaamnimada walaalnimada waxa waay waa islaamnimada naga dhibka waliga waji hord bilaadan hortiisa ma fariisanin qof xamaalanaya iska ordayaan maanta wajiga bilaadanka kulli maanta wax ay soo baday wax yar ma ahan inaan la isa kaalmeeyaan jeclaa insha Allah aad ya danika adag baa la danika adag maanta waa wallahi waa maalin murugo wax la bariyo bilaadan baa ugu daran hor maanta waan idin baryeynaa culayska naga dulqaaday bariyo bilaadan wax ka daran ma laha wallahi adduunka waxaan ugu nacbahay bariyo bilaadan qof aan nacbayna bariyo bilaadan ma jiro ilmaha Reyaalo bilaadan oo Soomaali Maxamed waan idin baahanahay maanta culayska naga dulqaada dhibka nala qaybsada hooyada Soomaaliyeed hala soo caawiyo wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh